العليم. waxaan ku jirnaa kitaabkii cumdat axkaamka ahaa sheekha wuxuu ka hadlayey kitaabulxaj ayuu ka hadlayey sheekh maanta baab cusub u bilaabay oo ah baabu maa yajuusu qatluhu maadaama xajka lagu jiro waxaan soo sheegnay saydka ama ugaarsiga in wax la ugaarsada inay xaaraan tahay qofka markuu ixraam wato balse waxaan soo sheegnay maka fadligeeda markaan ka hadlaynay in maka aan bahalkeeda la eriyi karin la cabsin gelin karin geedkeeda aan la goy karin halka sheekh wuxuu leeyahy marka maa yajuusu qatluhu maxa maka lagu dili kara bahallada maka lagu dili kara ayuu ka hadlayaa baabu maa yajuusu qatluhu can caaishata radia allahu canha ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama qaal خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور حديث كان وحنوغو شيغا نبي عليه الصلاة والسلام عائشة سوريس رضي الله عنها قفك مكة جوغا أما حرامها مكة وحرما نربها لكم ديري كرو سان شيغني لكن هل كان وحنوغو شيغا نبي عليه الصلاة والسلام شن بخلوت أما شن حيوان إن لغو ديري كرو هل كان وعلي أن عائشة سوريسي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي نبتقنا حريس كوركي ساعتين قال وحوير خمس شن ومن الدواب أو دابوينك أو كل ما يدب على الأرض حيوانات كلهن وحوير النبي عليه الصلاة والسلام فاسق وي فاسق وحلال جيدا فاسق مركز دب أيوك يستا فاسقة أما بقف بني آدم هذا أما حيوان دو يهين وحلال جيدا دب أيوك يؤذي الناس تذكر دبايا ساس وي فاسق وحكست وح دبايا يعني نك فاسق هذا قف بني آدم وياهي daduu dhibayaa been buu wax ka sheegayaa been war wuxuu ku soo guurinayaa aan jirin waa nin ilaahay subxaana watacaala aan ka cabsanin oo xiriirka ilaahay asaga gooyey faasiqa alle waa beenlow faasiqa allihi kara oo welidaga nabigu calayhi salaatu wasalaam aayadda qur-aanka ilahi subxana wataala uu leeyahy in ja'akum faasiqun binaba'in fatabayanu hadduu nin beenlow ah oo faasiqa war keeno in la kala caddeystaa roon walidaalika markasta waxaan dadka kaga dignaa dadkan tviyada aan leeyahay websayada iyo youtubeyada warka iskaaga soo qoraya oo beenta ah faasiq weeye warkaas ha ku duulin qof ama dowladuu taageersan yahay ama mucaaraduu taageersan yahay wuxur wuu soo sheegaa wuxur wuu soo qora hadda marka adaa aaminaya dadka la rabaa in la kasbado walidaalika xarbigan iclaamiga ah oo hadda gaalada dadka ay ku wadaan ay dadka ka cabsiinayaan oo waxa cudurradan lasoo sheegayo iyo faasiq weeye laa yusadaq hadalkiisa lama qaadanayo maxaa ilahay qur-aanka wuxuu leeyahy in ja'akum faasiqun binaba'in fatabayanu caddaystuu leeyahy hubiya aad ka qaadan wax kastoo whatsappka lagu soo diro ama wax kastoo facebooka ku aragtid iyo wax kasta oo nin maqaal soo qoray iyo wax kastoo oo qof soo qoray qofka fiir soo qoray faasiq weeye marka faasiqaas waxaa la rabaa in warkiisa kala caddaysto saasuu islaamkana baray xayawaankana waa leeyahy faasiqu dadka wax dhibaya wey maxaa ninka faasiq dib uu keena dabu hurina أن تصيب قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين تدرس قدرة ولذلك آيات أصبح لك هرمر آيات وإن طائفتان من المؤمنين هدي المؤمن اقتتلوا على قصارك وهدي إسدلان لما طائف وحكوه رئيس دقال انتو بالله بان فاسقة ورككينة ولذلك الدقال إسكا هالمر ما بالله لكن هردعوا سميا بين بالس وشيغيا نمبا ننكلا بين وشيغايو تدا فتو إسكا بحنا هداها بهلا ديلا دهايو وحاصلن وحواي wararka waxa waaye oo la rabo in la cadeysta la doonayo markaas kadib dagaal imaana marka dadka muslimiinta markaas isku dhacayaan sidaas isku qaadanaa maxaa dhacay warar loo kala qaaday kan warar loo keeno kan war dadka la baraarujiyay dadka propaganda lagu furay marka propagandadaas ka horeysta dagaalka markasta walidaalka islaamka intuu ka hadlin oo inta ay fataan min muuminiin intuu ka hadlin wuxuu ka soo hormariyay aayadda in ja'akum faasiqun binaba'in fatabayyanu faasiqa insaanka waa kaas hadda maxalkeeda uma joogna anaga waa laga yaabaa marar kalena ka hadalno laakiin hadda faasiqa uu nebigu ku tilmaamay xayawaanka dadka dhiba oo dhib keeni karo dadka dhaawici karo ama sumayn karo ama dili karo waxaasoo dhan faasiqa la iska yidhaa wuxuu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiiskan خمس شن من الدواب وحيوانك كمذا كلهن وحور فاسق وي يقتلن والدلها في الحرم حرم كدلو أركعته والدلها حرم كأنها حرم آمن واي وحلو مدلي كرو ديق لو مدادي كان ديني ديقان حدث كان فاسقة ولو دادنا وحيوان كان شنتان حيوان ولذلك علماء وحي كسي قياس قادم دون وحي دكمة روايتك المسلم وحي يقتل خمس فواسق في الحل والحرم
رواية كلا أو إمام مسلم صوري يقول لي شنتان فاسق وحور حل كان والجدلة مقالوين كلا والجدلة كلا حرم كنا والجدلة كلا نعم أما حتى لها حل والحرم حتى أقف يسوء إحرام وطو يسوء إحرام وذن هدو حج يهي إحرامك حرية حج وطو وأدري كلا محاوى شنت مرك الغراب دكهوي حي دكها وحليري سقى إن بيرها إيو وحاسو إبرك دقا والحدأة إيو دفضة تنتفت وحبي دفت أيضا والعقرب يدبقى لوعة أم هنقرارعة والفأرة يدولق أم جيركة والكلب العقور إيجا بقومها قوي ودك عنا شنتاس بهل وحي النبي عليه الصلاة والسلام حرمنا والقدير كرا مقالكنا والقدير كرا بل إحرامك أدو أصدق وطا حتى قفك فيديو ما لغرب علماء كهلدون رواية مسلم حديث جام قد يقتل 5 فواسق في الحل والحرم حل يحرم والقدير كرا ولذلك خلاف كما تاغنا شنتان النبي وشيغي عليه الصلاة والسلام إلا ديلكر لكن وحو خلافك كتاغين شنتان علد لو دير محيتا سببت لو ديلاي محيتا هدي لها علد هذه علد لو ديلاي محيتا هديتها علد لو ogaado wax kasto ciladaas laga helo wal dili karaa iimaanayso wadaalika fuqahadu waxay isku khilaafeen shantan waa isku waafaqsanay nabiga sheegay caliis mansuus calayha waa kuwa la sheegay nasa sheegay kuwa laakiin hal yutadda alqatl ma la gudbi karaa dilka ma la dhihi karaa shantan bahal sifooyinka laga helay bahal kasto laga helo waa lagu dili karaa xaramka iyo xilka ma laga qiyaas qaadan karaa ciladooda hadii la helo isku khilaafeen أبو حنيفة أسوي حقه وحولي شنتان كلية أيا لا شيء شنتان حل حل ودير كرا خلاف كودا مفهوم كودا مفهوم ولذلك ولقرها جحسين أبو حنيفة كان معايا المسائل أصولك مفهوم من عدد وقاتات ترى أيا الحددوا ليه ترى أنا حددي أيا مفهوم عدد أنه عند الجمهور الأصوليين لا يعدد لما لا يعتبر اعتبار لقى مقات مفهوم عدد مفهوم لقب كون وما تواسى maxay waxay ku leeyihiin cadad ayaa lagu sheegay ama mafhuum laqab wala magacyo loo yeelay aqrabun wal fa'ratun marka mafhuumka laqabku qaato arintaas wuxuu leeyahay la yu'adda bahal kale laga ma qaadan karo marka mafhuum cadalka usuuliyiintu waxa leeyahay la yu'tabar shay mafhuum laqabka laftigiisa jumhuurku marka waxay qabaan wax kasto dibka oo sifada laga helay shantan waa lagu dili karaa xarb iyo xarb jumhuur fuqahada qabto ومالكية كميدة وشافعين كميدة وحنابلة كميدة لكن أي نفترض مسكلة اسكو خلافين وحيد علد محيته علد وقلنا إن لقى قياس قاطو بهلك لكن علد هرت لور محيته ماذا إمام شافعي إنه حقوق بقى أصلا ماذا بكينا ماذا شافعي قولك شافعي نفتي وحقوق بقى عليه مما لا يؤكل وما احنا قف إحرام وطو هدود ديلو بهل ولعنو عنتديس لعنو ومعنا حلاله هي بكيس فيدي لغا مرة لكن wuxuu yiri maadaama shantan hilibkooda lama cuno lama wax la cuno kuma jiro marka ciladu wuxuu ka dhigay mima la yuukal wax la cunin wuxuu leeyahay marka wuxuu leeyahay wax kasto oo aan la cunin waa la dili karaa wax kasta aan la cunin hadii xaramka lagu dilo libax hadii lagu dilo bahlada kale lagu dilo aan la cunin wuxuu leeyahay waa lagu dili karaa وحمود أمريكا قول كاس إن قول مالكية حنابلة أما كراجح سجنا مودا محيي لي علده معها أكل كماها ومحيي لي ولذلك ابن دقيق عيدا كلا صار وحوير وحكوا ذا حدو قف كان يبدلك مركي لها هلا وحلا ذا قفكم معنى درح مدلا إيه وحكى فائدة سنة وحدلا مركا السيد كوك هلا وير مركا باب السيد هذا تاعي مما يؤكل هذا سيد أسمي سيد وبقر الجيل أكو خالتيد أسو وقارست ذا كين سيد ما لو ديلاyo wax laga marabo maxay marka hal kala saaro leey min daqiiq ciid hal kala saaro sayidka waxa loo baneeyay waxa loo baneeyay dilka waa laba kala tahay wadaalka mas'alada dilka markii qiyaas laga qaadanayo in la dhahaweey oo maaliki qolkooda dhahayo halkan waxa la keenay iida waa dib ay leeyihiin kooga bahalna dib u leeyahay quraabka dib u keensaday dafad dib leedahay dabqalooca sidoo kale eeyga wax dila دولي دب dadku dhiba saas daraadood wixii kasto dhibay in qiyaaska la geliyo ayaa fiican balse shanta bacd fuqaha waxay qabaan shantaba waxba laga soo qaatay oo laga soo qaaday oo wax laga soo qaaday macnaha
هدي ان وحالي دول وحو دوليليا waxa kasto wax bahal kasto wax duleelina in la dhaho waxay la dhaho bahal dafada waxbay daftaa wax kasto wax dafo oo waxa kasoo galay gorkorkii galeerkii wax kasto wax dafo in qiyaas laga qaato kan waa qani lacsi uu sameeyaa aqrabka dadka ayuu sun ku sameeyaa wax ka sida waxa soo galaysa abeesadii masaski asan aqrabka laga qiyaas qaadana in la dhaho quraabkan asagana waxbuu u beeraha adi u geeyaa wax kasto adigaas keenay marka si kastaba ahaatee waxay jiraan culimada sidooda markii arrimaha xajka laga hadlayo taasana qosaysa anaga oo ah arrimaha xajka lagu helayo xayawaanaadka sidoodaba afar loo kala qaybiyaa afar ayaa loo kala qaybiyaa macna xayawaanaadka fidyada ku waajibinayo qofka xaajiga ama xaramka doo ku sameeyo fidyi laga rabo afar nooc loo kala qaada sidooda ko xayawaanka hore waxa weeye xayawaanaat almusta'nisa xayawaanaadka ay dadka la joogo sida bahiimat al-an'aamka kale lo'da iyo geel oo kale dijaajka digaag oo kale kuwaas oo kale waxa leeyahay waa qala karta hadaa ninka xaajiga oo maka ku qasho wax fidyi laga rabo malaha wax ku banaan waa ko xayawaankaas wax laga rabo malaha sidoo kale xayawaanaat la yu'kal waxa jira xayawaanaan aan banaaneen oo laakiin dib aan lahayn وليس فيها أذى سida حيوان دب aan lahayn macnaha مثلا ku dhibaysa mima la yukal hilibkeeda ma banaan sida bisadoo kale mukulaasha ama yaanyuurta xaramkay joogtaa ma la dili karaa ma la dilaa maxaa dhacay laysa fiha adha kuma jiro walidalika fayukrah qatluha leeyahay hadduu qofka uu dilana bisadoo ku dila مثلا ixraamka soo wato waxaa leeyahay fala fidya calayh fidya lagama rabo kaas maxaa yeelay karahiyi waa qadligeeda hadduu dilan wax lagama rabo mima laa yakun laysa fiha adaa usoo galaa iyo xayawaanaan mu'diya shantaan aan sheegno dhibka keenayso bahalladan oo wax kastoo lamid maska kamid abeesada kamid waxyaabaha dhibka dadka u keenayo oo nabigu uu sheegay calays dafada kamid kuwaasoo kale waxa leeyahay fayushrac qadlaha waab ku banaanta kii hor karahiyeed mooda oo dhibka geenayn karahiyeed in la dilo makruuheed dhibkana nooca loo kala saara waxa dhibka مثلا حيوان غير مأكول مثل برمبرة وكلا كراهي وأن ندلو هذا دشيت برمبرة حاجة كود دشيت وحنا قناة لا فدي عليك وحلا قرنا أمرها برمبرة دي وحيا بعض أما واحد بكينا العصي سيدا للقوه كلائي بحل ضدك قنينة سيدا أن دم قلوع كلائي كاس ودي لك كوب بنانتها كوب بنانتها كانوا علوين مكوب بنان لا دشيت سيدا برمبرة دي دخسي وكلائي inkastoo tuqsiga la dhihi karo cudur uu keena wax iska dhihi karaan laakiin waxaan ka hadlaynaa mima laa yu'di dhib weyn ma laha ma lagu dili karaa qofka ma dilaa maya hadduu dilo karaahi waa dili karaa karaahi laakiin wax ma laga rabaa fidyi lagama rabo laakiin kuwa oo dhibka keenaya waxaa leeyahay hala dilo fidyina ma laga rabo labadaba isku darsadeen waa qaybta saddexaad waa qaybta afraad waxaa waaye alxayawaanaat albariya alma'kuula kuwa aan nuskeenna nala joogino sagaarada iyo waxyaabaha bannaan oo la cuni karo barigay ku nool yihiin laakiin waxay u baahan tahay kuwaas marka ugaarsi sayda la yiraahdo kuwaas waa bannaan yihiin laakiin magaalada kuma nool ilaan wixii magaalada ku nool ugaarsi looma aadayo sida lo'da iyo geelo kale ugaarsi looma aadaba waxa ugaarsi loo aadaa wixii bannaanka jira oo laakiin xalaal haddaad tiraahid libaxa soo ugaarsana haddaad tiraahdaa rabi maxaa yeelay libax ma cunays hilibkiis lama cuno marka ama shabeel laakiin waxa ku bannaan oo sidii sagaarada kale ah kuwaasoo kale ay waxay leeyihiin jazaa min nacam waa kaas waa la sheegay jazaa ay leeyihiin neef kasta ninkuu u dhigmo wuxuu u dhigmo horena waa usoo sheegnay xalaqada hore ka soo hadalnay kuwaas ninkii asagoo ixraamka ku jiro wax sameeyo jazaa uu bixinaya kaas taas inuu ogaado ayuu xadiiska leeyahay marka xadiiska nabiga calayhi salaatu wasalaam shanta saas ayuu noo kala qaaday waqtiga oo xajka oo lagu jiro nacam marka fuqahaada waxay isku khilaafeen markii adiga diliila naftooda shantan lagood naftooda iyagoo yaryar ka waran wax yar qaar waxaa jira iyagoo yar waa dhib aan lahayn bahalladan shanta aan sheegnay hadday yihiin qaar hadday yihiin xataa cilada sida lagu dhaafaya nacam sheekh markuu taas ka baxay ayuu wuxuu galaa baab kale oo ah baabu dukhulu makkata wagayrihi makka in la galo mawduucu dilkan waa ku dhex jiraa laakiin in makka la galo ayuu ka hadlayaa xadiiska anas باب دخول مكة وغيره عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعام الفتح يلا فرتوا مكة
أيو قال وعلى رأسه المغفر مدح وحا أصارنا جيد وحوا كوفي وكلاء وبر لقتله بر معايا دقالك مركي قلايان أي مدح إلا كشتا ان سيو هدو في سيفت دكور على سيفت وكا عليو بر لقتله نغفر الله نعم dumarka reer miyigan waa isticmaalaan laakiin bir mu isticmaalaan dhar ay tinta hoos ka dhigaan subag ay ku shubaan ay hoos geliyaan miqfir allah markaas shaashka kor ka sii saaranaysaa si madaxa ugu xirmo ka laakiin miqfirada hadda bira laga wadaa oo madaxa laga tolo waa koofi weeye qalam suwada hoosteeda laga gashtaa sidoo koofi camal loo gashanaa laakiin biru ka samaysan yahay وعن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي نبي نحر يذكر كيسا دخل مكة وقلي عام الفتح وقلي وعلى رأسه المغفرة الصغر برتاس مدحا كوفي كتولن الصغر يكون جرتو مدحا وقلي فلما نزعه مركو سيبي والدقالك مركو لما هذا معنا لأن دقالك أنت اللي جرو مكة نك جيش وأحر النبي وأحرنا مركو سيبالي جاء رجل لنا ويمد دقالك وقت لما هذا فيري ونبي أسيبي marka ereyga maqfarada waxba laga faa'iideysan doonaa ahkaam ba ana akbaxsan doonaa laakiin hadda maxal shaahid kama laakiin maxal shaahid ka kan jaa rajulun yimid faqala wuxuu yiri ibn qatal mutaalliq ninkin ibn qatal lahay mutaalliq bi astar al-ka'ba ka'bada sitirkeeda ayuu ku dhagan yahay asagoo raba in la dirin ibn qatal kan wuxuu ahaa nin soo islaamay baagi hore markuu soo islaamay nin muslim dilay markaasuu murtad noqday hadana waa soo cararay markuu soo noqday markii oo fatx makada la galay waatii heshiiskii shulxul xudaybiya uu ku jiray qofkii maxamed calayhi salaam annaga maka noo yimaado ku soo naqayna leeyahay ninkii aday ku yimaad ma soo noqon sama ibn qasal kan nin muslim oo ahaa nin muslim kale oo dilaalay wuxuu siri intii qisaaska ama lagu dili lahaa diintu ka baxay murtad oo noqday diinta markuu ka baxay maka oo soo cararana nin murtad waa marka diinta ka baxay dhiigna ku jiro qofna soo dilay marka wuxuu u siiri ibn aqtal kacbada hadii aad ku dhigtid dhiigaaga xarmo waa lagu taaban kara adiga kacbada ila aamin waliir waxa soo maqlay marka wuxuu siiri meeshan ila jaahiliyada saas ahayd kacbada waan sheegay nabiga kaleey wasi adkay wuxuu yiri dagaal aniga leeyahay dhiig ku daaday kacbada saacadeen ahayd yiri wiligeedin xaram ahaan xadiiska aan soo dhaafnay ku jira aan ka soo hadal marka nabiga kaleey markuu koofid iska siibay ayaa nin u yimid saxaabi wuxuu ku yiri ibn aqtalki waxa soo sameeyay rasuulka allah متعلق وحقوق قبصة وكل جنيا بأثار كعب فقال وحول النبي عليه الصلاة والسلام حاصمينا أصحابته عليه مركي أركين من أخذ ذلك إني ديناري رماته وكعب سبعين نكا كعبض كل جن كعبض ومن قلي وكعبض ستار كذا أساس وهاس ما دير كرت النبي وتجد نين كان أصول شيء النبي عليه السلام النبي يقول فقتلوها لدلو وما شاء الله مركا أي لو دلو هذا كان مركا هلد ديغا لو دادي هدان مركا هذا يقولوا waxaan daba soconnaa 5 يقتل في الحر والحرم كيان soconnaa bahaladii laga hadlay bini'aadanka la yimaadaan bini'aadanka xaramku lagu xadili karo muxuu waxa halkan waxa laga fahmaa leeyahay ko ninka muhramka inuu wax dilo ma dhiig inuu daadi ma wali nabi alayhi salaam muhram horta ma baahan dagaalkaas fatx makka markuu uu furinay nabi alayhi salaam inuu musuq oo guto uma imaanin الجهاد ويمد ولذلك وحا halkaas laga soo baxsada jihadka iyo cibaadada jihadka horeeyay ilaadi maxay asaga maslaxadiisa anfaca nabi kaleey salaam madina anagu cimraysana ka bacda cimradan iyo wasi xiranina dagaal galena madin mako wuxuu ku galay ولذلك حديث على الفهم هدنا سيدي جمهور الفقهاء قبان ان المكه فتحت عنوه دغال لو فري حديث كان ولا فهميا الا قولك الشافعي وده صلح لو فري نبدا لو فري وديكم دادانين وامام شافعي قبكا لكن جمهورك waxay qabaan cunwa lagu furay marka wuxuu leeyahay riwaayada Malik wuxuu inuu lam yakun muhraman dalik leeyahay nabiga ihraam wadanin maxay ihraam wadooto ninka ilaa nusiga cimrada markay dhamaato kadib ayuu nabiga kaleey salaam dhihi ninka la dilo laakiin asxaabtii ihraam wadato iyo ihraam la wato hala dilan lama dhihin ninka ولذلك حديث كاس نفسه شهاب ابن شهاب عليه روايه مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون محرما ذلك اليوم ما أهين نعم ما حد دليل وحد دليل نك محرم كوفي محرم كرو لكن النبي عليه الصلاة والسلام مغفر وتالي الكوفي ما راح أصارني مرك كوفي ده صدق يعني معناه إنه فائدة دونتا وحلاقة فائدة النبي عليه الصلاة والسلام إنه إحرام وذنين على فائدة
نعم وعمره وصوب بحين أي هالكاس لقى فهم أي لقى فهم ولذلك وحول لي هاي قال كلا يحرم وتنب عليه الصلاة والسلام لكن ما دام الجهاد يمسك أسلفلنا مركا نك معذور كأه وحن المدح وضبولا كرا مركا ساسو مدح وضبورت معذور وحن في سيف إنه كل عضو كعب حسكيس عمر ديس إنه جذكر النبي عليه الصلاة والسلام قالتري نعم ولذلك أردت ولا جواب كرا وحلي كرا خصوصية وحكوين النبي عليه الصلاة والسلام إنه يجري أنت ليه لهذين النبي عليه الصلاة والسلام جهادك يوسكي إلالية ونك معذور كمدح وضبولا كرا أصو إحرام نك محرم كا مع عذر أهان مدح وضبولا كرا أنت ليه يسين وحابك تشوف يعني اللي يراه ولم تحل لي قتل لأحد قبلي قفك المبا أنا إبنا نتنو النبي عليه الصلاة والسلام أدينا كفي عم أتراه نبي وأبنا ندور كدير مكو معايا لو عير أنا هاد ساعات كلي لي بني الله يكفي نعم مركا محل كشاهد كحول يعني مركا حديثك على فهمية حديثك على فهمية كو النبي عليه الصلاة والسلام إنه قال مكة قالي فتح مكة بدون إحرام إنه قالي يا لك فهمية محل دحين مضح يسا يا مغفرة ذا وصارنيت مضح أضبولنا كو وحلق فهمية تقديم الجهاد على النسك إن جهادك أكهر رأي عبادة يعني النبي عليه الصلاة والسلام عبادة مسوء آذن بل جهادك هو مريك بعد وعبادة لقودنا هدي تساحم اسكوسا ما عبادة iyo jihaad sida fardiga xajko kale iyo fardiga ilaa nabiga calayhi wali ma xajinin xajka xaja lagu leeyahay xajka lagu leeyahay wali ma xajinin marka fardiga xajiga taraaqi ma laga dhigi karaa xajka ma iyo jihaadka hadii tasaxum isku sameeyaan fardiga xajka dib ma loo dhigi karaa jihaadka ma horumarna ha kana adriil u ah nabiga calayhi salaam jihaadku horumari ma dhihin xaja lagu leeyahay horta marka xajika bacda jihaada ama aan wax isku damaya xajka dib loo dhigi karaa ولذلك وان شيخنا علماء المذهب الشافعي التراخي جد حدك وجوب كيس تراخي وفور ما دق ما هدينا حاجز لكن وحكى لها دي كاسو قلان وحكى لها كهر مركرت حاجك إن العقير عروب صدي قبل أوفر لذا ماشان إنه قرص الربا محلي حاجك ما قطعها مسا قبل لك قرص حلي قبل لك قرص سنة دبا العقل عروب سنة حاجك أديسة حاجك وديبا ودي كرتها محيا تن مصلحة أنا كويت شهودا نعمل وشيء oo guurkaaga asturto sunnada nabiga qabsatay calayhi salaatu wasalaam oo xaguur xalaal agashid ayaa horumarinaysa kadib ayaa xajka gadaalka xajinay saas oo wadaalika mas'aladaas waa mas'ala dadkaas ay waxaas isku qabteen loo baneeyay waa laakiin dadka waa iska cadeysteen shaqo ku jira xajka gadaalka aada wax kasta xukuna maya fardiga hore dib loo dhiga qayrul birri aajiruhu yakuu damaan qaadana dhimanaysid bari laakiin markay qofkaan oo kala duruuftaas ku qaan lacag yar oo haystaa muku aroosa مسا وجري وحليه كوارد لكن أترى شقة شقيسها سنة قد بحاجة سنة قد يلا دب اللي بيجي ما فرض قوتها جماعة وكوجر سيدو كل حديث إلى فما مكة فتح من وطن إن غفر دك حوق إن غفر وأم صلح الغفر خلافا من قول الشافعي ثاني أو إلى صلح يا الغفر وحكى لا حديث إلى فما دقال هذه الجلايو أخذ الأسباب على الربا أسباب تنلقاته أسباب تنلقاته توكل على الله مديديس النبي عليه الصلاة والسلام محقوق قشت كوفي بر أمدي يسمعوا قلي مودي كرنا والله إله تلا صارت النفط قرت جو إيساي وسعاة جهات بس قال ما دحي أسقاونا هذا ما أسبابتي لقاته ولذلك دتك هذا مركي عذرنا وكلا جرا ولا صو شيء وعذر معدي أي جيران ودتك وجود باي ولا إسقاادي كرو أسبابتي لقاته الربا إن تلاهي وحام بين واي واسقصوبنا وحام بين واي وقت دمنا ما نعم وقت دمنا لكن أقت الأسباب أسبابتنا قادتي كما هو رمانيس إلهنا تلسارت مركا دادا وحدتك كالكتوع يقول إلهي ما تلسى إيمان كيسا ضعيفة جروك عبسنا جرد والله أنا كنينك قادتي إن كالفواشة أدداشي وحلوي لا إمام كبعد إلهي تلسار تاسوى تلسار الوشي لكن ما هو ضيعة أنا ديارة كوريا دادا وحلا ديارة كوريا تستس كما قاضايا ورقد بين الله سمينا وحال الشيء دين بوا قالت قالت ما دتك عذر كان هو بين دتك اسباب لكن دت العذر كان بين واي اخ ورقد يسوسوب يعني عافمات قبا هذو عافمات قبت قابل كرتا عذر دد هليك كرتا marka dhawaad wax gaarsi karta ولذلك ما banaan marka waxa sidoo kale waxa laga fahmaa jawaasul xuduudi في الحرم عقد الحدود في الحرم إذا
حرمك إن لو حفلنا حجك قصاص نينكا سود ابن أخضر ابن خطل دادو سود لي وحوس لاي كعبده كفك قدومه وهل دلا النبي هل دلو ديغا كجر نينكاس وهل دلا نعم لaba digaaba isku gashay diintu ka baxay iyo waxa isku tagtay qof uu soo dilay ayaa isku tagtay nacam nacam ana abdullah ibn umar xadiiska sheekh wuxuu galay hadana kacbada gudaheeda aan ka hadlaynaa dad ma lagu diri karaa waa ka hadlaa waxa laga hadlaa hadan dad ma lagu tukan karaa kacbada gudaheeda ma lagu tukan karaa ayo mas'alo kale ayuu sheekh halkan ka keenay oo ahayd maxay tahay ana abdullah ibn umar radiyallahu anhuma qala دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة ابن زيد وبلال وعثمان ابن طلحة فأغلقوا عليهم الباب فلما فتحوا كنت أول من ولج فلقيت بلالا فسألته هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم بين العمودين اليمانيين حديث كان أساقنا وحكوت صيا النبي عليه الصلاة والسلام فتح مكة ولي أن كجرنا مكة لفري أو صنمدي كجر مكة كعبد لقد داهري ونبي أخري جاء الحق وزهق الباطل وصنمدي لبربري النبي عليه الصلاة والسلام شكر نعمة إلهي وسهلي وما أنت كعبدي كحري مشركين تي كدهري رجتي جودي أو ثانتودي أيو كعبدو جودي هذي كله كعبدو جودي هذي مركو كله وحالة سعودية لقى لمركة أسامة ابن زيد حب النبي صلى الله عليه وسلم وجعل النبي عليه الصلاة والسلام بلال عثمان ابن طلحة أو أها نكي فرها هاي سد حدود مركة لقى لين هذا النبي أصحاب بدنا على سعود أصحابته مركة لسعودة أصحابته لأن النبي مشى وقال له روينا كلام مركة إنه مشى كعبضة أو لقب وحسمين راوي وحليه فأقلقوا عليهم واسكسوا حرين مركة ولذلك ساوت اللي اسكسوا حرين علماء مركة علت الشيء حديث كفسر أيام وعليه وحليسكوسا حتى لا يتزاحم عليه الناس ضدك إني اسكو دردرين اللي ما لا فرض له النبي قال أمتنا أنا قليش مركا الباب كيسو حستين عليه الباب ممكن يحسن عباري كجرين صاحبت بناكي تاجنت راوي وعبد الله بن عمر أهانين وحوها عبد الله بن عمر تتبع أثر كنبي إنه رجع له هذا وجعله نبي وحصمين وصمي وجعله مركا صور أنا مركا وحوليه هاي حديث كانوا كل شيء وحوليه هاي فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي آية قال كعبده أسامة ابن زيد بلال عثمان ابن طلحة آية قالين فأقلقوا عليه الباب كأي سحرتين أن أطلع عمر منكم حلوية قانا ساش أغنى إنه راعوا النبي عليه السلام وحو سوبيو وقا ما ناكبر كل جو ساعة حتى ولا لك حاجة ماشي النبي جيتكم كوك هذه مركي مدينة لك ضبعي مدينة مكة الإمانة عبد الله بن عمر وعلي النبي جيتكم حاجة وقالي وحنقصو حاجة قلت وقال النبي أصلا أسكاد الجلالين النبي ما شانكو حاجة قلت أنا حاجة إما هاي سؤال هذا لكن أقصو حاجة قلت أنا سسول الرجل معنى تتبع عدو جعلها مركز هذا الراوي أسوي حديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما على كلام وحجري فلما فتحوا مركي فورين وحجري كنت وحقها أنا وعبد الله أول من ولد نك وهري وقلاها هاي رقبت ذلك فلقيته كعبدان قالوا مركي لفروان قالي فلقيته حأركو مركب بلالا يهري من قبتي سألته سؤالا ويدي سؤال مهم ويدي محاودي هل صلى في رسول الله فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي ومكون حتى كعبد فالفير سؤال شو ويدي سؤال مهم وحكى لهم ويدي محاسة ميساني مدعو عيستيني النبي وكنت عيستاليري وحسن ما ويدي ما الوحو ويدي وحو النبي صلاة ما كنت كذا ماشي وحو أنه كنت كذا ربع سنة إلى النبي كنت عيستالي قال وحو بلال نعم النبي صلى الله عليه وسلم كنت كي انت كنت كتي بين العمودين اليمانيين لبتير كعبد وحال لحتير لهيد سدح كداله إلا مدنا مدك مدنا بدحة لبدك مدكت لحظة كنت كن لحظة سدح كداله أدوان شكل كان لبدا سن كنت كنو يري لحظة كنت كني حديث كأمريكا على قصة قاطي كو علي عبد الله قبر الواحد الآن أصوليين استعماشه قبول قبر الواحد هقف وحويدي وأنا آمن عليه ذاتك كلام ورسن بلال إيو عثمان بن طلحة يمويدني markuu in la qaato qabuul qabar waaxid in la qaado karo bacda usuuliyiin ay soo diriirsado marka taas ka tagno salaadii isku khilaafeen kacbada gudaheeda ma lagu tukan karaa ayaa la isku khilaafay madhabka maalikiga iyo xanaabilada waxay kala qaadeen fardiga iyo sunnada waa la kala qaaday waxay qabaan sunnada waa lagu tukan karaa laakiin fardiga waxay imaam maalik wuxuu leeyahay makruuh waa lagu tukan karo
بعد حنابلة way بديدين وحيري لا يجوز صلاة فرض إن كعبada kurgudeeda iyo korkeeda lagu tukan karo haddii mar gudaha lagu tukaday su-aasha iyo korka waa sa socdaan maxaa dhacay qofka hadduu gudaha kacbada ku tukaday waxay maas intuu u jeestay ilaa kacbada banaanka markii laga joogo iyadaa loo jeesanaya mogta gudaha haddii loo tukado halkee loo jeestay iyada lagu dhex tukaday waxaa lamid ah gudaha korkeeda ma lagu tukan karo wadaalika fuqahada masaladaas waa ka hadleen kacbada ninkii koro ma ku tukan karaa korkeeda iyo gudaheeda ma lagu tukan karaa waxay yidhaaheen marka laba arrin waa la kala qaaday qol waxay leeyihiin marka hore hala kala qaado salaada lagu tukanayo maxay tahay hadday sunna ay tahay waa bannaan tahay fardina aka laguma tukan karo baynama madhabkeena anaga shaaficiga wuxuu qabaa gudaha waa lagu tukan karaa fardiga waa lagu tukan karaa sunnana waa lagu tukan karaa sunno iyo fard maxaa yeelay adiladay soo deliishadeen xanaabilada iyo maalikiyada oo ah ma deliishan ko waxay soo deliishadeen waxay yidhiin kacbada ha loo jeestaa la yidhi fawallu wajhakum shatra masjid alxaraam sooma waxay ninka gudaha ku jiro intuu u jeesanaa walidaalika ma bannaan kacbada laa fardi in lagu tukado gudaha in lagu tukado fowqeeda in lagu tukado waana la amray imaam shaafici waxay leeyihin madhab shaafici leeyihin kaas haddee tahay sunnadan sidoo kale waa fardiga wixii laga rabaa sunnada laga rabaa idin qiblada in loo jeesto si ay u kala farqiseen dhahdeen sunno lagu tukan karaa fardiga lagu tukan karo maxaa u tiri haddii fardiga ka reebteen sunnada ka banayseen fardigina waa banaaya ilaa aayad ahayd ha loo jeesto sunno iyo fardiga xagga loo jeestaa kow waa ka jawaabeen xadiiskaas waxay kale soo deliishadeen qolka xadiiska tirmadi ibn cumar xadiiskiisa wuxuu ahaa wuxuu nabiga calayhi salaatu wasalaam nahaa rasuulullahi an nusalli fi sabcin todoba meel nabiga waa naga reeb buu yidhi cabdullahi ibn cabbaas wuxuu yidhi nabiga todoba jeer waa ibn cumar aan leeyahay todoba meel waa naga reeb nabiga calayhi salaam inaan u jeesano markaa tukanayno kow waxaa ka mid wuxuu yidhi almasbala meelaha oo qashinka qobka iyo waxaas in lagu tukado waa naga reebay wuxuu kale naga reebay almajzara meesha oo kawaanka hilibka lagu qalo dhiig waxaas in lagu tukado waa naga reebay waxaana laga reebay almaqbara qubuurta inaan ku tukano salaada waana laga reebay waxaa laga reebay qaaricata ariiq wadooyinka dada iskaaga tukada wadada dadka maraya inuu ku tukaa wuxuu leeyahay salaada ilahay wuu leeyahay ma ah nabigu waa reebay kow alxamaam musqulaha in lagu tukado waa la reebay maxaa kale macaatin alibil meelaha moorada ibilka oo geelana waa la reebay iyo fowqa albayt alxaram uu yidhi marka guri meeshaas maxalka shaahidka halkaas waa todobada saas waa wuxuu leeyahay marka madhabka abu xaniifa iyo shaaficiyadu ka qabaan shaaficiyadii abi xaniifa waa bannaan tahay korkeeduna lagu tukan karaa gudaheeduna waa lagu tukan karaa walidaalika hadda masalada masalan fiirsan xijr ismaaciil ayaa waxaa ah xijr ismaaciil waxaan leeyahay meeshan qaansada ah oo nabiga inuu dhisa rabay oo yiri caaisha haddii qoomkaaga ay ahaan lahayn xadiis alaxdi waa dumin lahay kacbada waa ku dari laha maxaa yeele waxaa leeyahay quraysh lacagtaa ka go'day kacbada inay meesha uu ismaaciil xijrigiisa uu fadhiisan jiray kacbaday ku jirto kacbada dhisaa waa waqti ibrahim binaa ibrahim saasay ahayd laakiin waa gudi waayeen maadaama maal xalaal u raadinayeen intana kusoo okeen walidaalika hadda qaansadaas loo yeelay xijr ismaaciil hadda madhabka xanaabilada ilaa meesha hadda xukunto oo sacuudiga ah sunno laguma tukan karo فرد من الكتوكر وقت فرد ولا حرا لكن وقت السنة الكتوكنا وقت السنة أي الكتوكنا هاي النبي عليه الحديث كعايشة نقول له إنك كنت كذا وسوق جودها كعبد كل حد كذا لما تا عشان قاصد الحج إسماعيل كذا كنت كذا جودها مساجد كعبد جودها كنت كذا لا أي لما تا صدرت أيوة حلية مركب عند الحنابلة قول كاسي مالكي دي قاتل عليه فرد اللي كتوكر فرد واحد معي داخل كعبة يقول لك أنت ماشاس داخل قاعد انت لكن مذهبك حبيبي ابي حنيفه الشافعي فرض هذا كنت كرته صلاتك قلود ماشي كنت كرته حجري لكن ما بلقوا فصحى وقتيgaas kale in la furo lagu fasaxay naam oo masaladaas idana masaladaas marka daliilkan wuxuu daliil u yahay sidoo kale in been umuudeenka lagu tuka karo laba umuud dhaxdooda in lagu tuka karan waa u yahay xadiiska ta kusoo koobina maxay sheekhu wuxuu bilaabayaa in xajir aswad ku hadal doona iyo ahkaantiisa سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وحدان قد نفتي ذي الشيطان كهت تنسى التوفيق إلهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته